arrintaanu waxay fariin cad u tahay bulshada Soomaaliyeed oo aan leeyahay wax inoo haray ma jiro shabaab iyo qawaari targetkoodu ma ahan shakhsi dawlad u shaqeeya askari iyo cid kasta wixii la halmaala ee maantay waxay u socdaan inay isirsafeeyaan magaca ummadda Soomaaliyeed war hooyada liida ku gadaysay buskudka ama bajiyaha iyo sambuuska maxay galabsatay wiilka iyo gabadha xaamilada ah ee u soo aaday inay ku nafisto xeebta liida maalinka jimcaha maxay galabsatay taas waxay ku cadeynaysaa in qawaaritu aysan u soconin heykal iyo nidaam dawli ama askari aysan u soconin ay u socdaan la dagaalanka magaca ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan cid kasta oo dareemi karta dhibaatada xaddigaas leeg inay u istaagaan difaaca dalka iyo diinta lagana difaaco kooxan qawaarita ay ku soo duulay inay magaca ummadda Soomaaliyeed baabiyaan